قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب اليقين والتوكل. baabkan wuxuu ka hadlayaa yaqiin iyo tawakul. yaqiinku iimaanku heerka ugu sareeya weeyaan. iimaanka mu'minka heerka ugu sareeya waa markuu yaqiin uu gaaro. tawakulkana ilaa in la tala saarto, taladaada iyo umuurtaada oo dhan alla u dhiibato. qaala allahu tacaala, rabbi wuxuu yidhi: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ورب سبحانه وتعالى والكوكوت المامي في سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب gaalada isu soo bahaysatay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii ay ku soo duuleen oo dhan weliba ay ka yimaadeen. miyi iyo magaalaba laga yimid, ee madiine lasoo weeraray, ee dhibaatadu ay badatay, gaaladuna ay aada u tiro badnaayeen oo muslimiintu ay ka badnaayeen. koorta ayaa laga hadlayay mu'miniintu iimaankoodii yaqiinkoodii heerka uu gaarsiisanaa. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كورتا ويان سورة آيات كاللوغو هاللي سورة بغزوة يا اللوغو مقعدريو غزوة الأحزاب، سورة الأحزاب هالليري مركا دقيسو قالوا الصوب هيستي وتربنا يكون يمادين ومقالة مدينة مؤمنين تو إيمان كودي سدوها. قال تعالى، ربي وحوري ولما قور رأى أي أركان المؤمنون مؤمنين تو مركي أركان الأحزاب كوي الصوب هيستي أمي يمقالة بكيمد أورك كوسو قالي مقالة مدينة muuminiinta halkaa joogtay markay kuwa arkeen ciidankaa faraha badan, qaaluu waxay walwali walbahaar iyo cabsi midna kama qaadine waxay yidhaahdeen: haadaa kan maa kii wayaan wacadana allaahu alla noo yaboohay, warasuuluhu rasuulkiisana noo yaboohay. sharib imtixaan inuu jiri doono horaaba la noogu sheegay. wasadaqa allaahu warasuuluhu, ilaahay rasuulkiisana run bay noo sheegeen. wamaa zaadahum isbahaysashada ay gaaladu isoo bahaysan iyo tiro badnaanta halkay ku yimaadeen mu'miniintu uma kordhin ilaa iimaanan, iimaan buu u kordhiyey, wa tasliiman iyo hogaansamid. u fiirso, qalqal iyo cabsi iyo intaa waxa weyaan kama ayan qaadino geesinimo iyo hogaansamid iyo iimaan bay kasii qaadeen. وقال تعالى، ربي وحوري أيضا سورة آل عمران في غزوة أحزاب بلغال في غزوة أحد بيدنا تلماميسا. قال تعالى، ربي وحوري الذين كوا قال يري لهم إيجا الناس دذك يكوا دذك ويري إن الناس دذك قد جمعوا لكم ويكلمانوا oo idinka dartiin bayna u soo kulmeen oo fakhshawhum bal ka baqa ee ka cabsada. fazaadahum hadalka wuxuu u kordhiyey iimaanan, iimaan buu u kordhiyey.
وقالوا وحينا جرادين حسبنا الله الله نغفلا ونعم وحا وناكسنا هذي الوكيل قبل ترسارتنا ووكيل كان نقضى الله ونعم بتيويا آيادا وقوربا في غزوة أحد سنة كصدحات هجرياته بعد غزوة بدر دقالك بدر قاربا بالغلاي وانا دقالك وغوريي مسلمين في قادين ودقالك لقد لي أبي جهل يرقي لمدكاها سنة كدام بيبي يقول يسوى وولين قالوا إني أرصدان أحد مدينة وير قصوا قادين بورتا أحد بالغوة كل مي marka hore fakta hore muslimiin badan baalka lagu jibiyay ee lagu dilay nabiga adeerkiisii uu ka mid yahay Hamza ibn Abd al-Muttalib sayyid ash-shuhada Mus'ab ibn Umayr rakale baalka lagu laylaa toddobaatan baa la sheegaa sababka ayada suurata al-Imran in badan bay ka hadashay khilaaf nabiga la khilaafay baa dhaliyay khilaafku dhibku leeyahay war nabi la khilaafay baa jabka dhaliyay taaba marka muuminiinta laga digayo dib dambe sayan u dhicin marka dagaalka u fiirso dagaalka marka la jabay ee muslimiintu toddobaatan laga dilay ee dagaalka markuu joogsaday kaaladana dib bay u durkeen muslimiinta iyagoo halkaa joogo Abu Sufyaan ba marka colka hogaaminayay wali ma islaamin gaal buu ahaa isaga ciidamada la socday wuxuu marka uu fikiray shaydaan ba u sheekay wuxuu war markaad ka soo tagdeen halkaa timaadeen raggoodii inta ugu badnaa waad gawawarteen bilcaan iyo caruurna ma aydan qabsan magaalana ma aydan soo dhicin oo boobin halka miyaanu ka naqanayna ma ka noqon mayn waa inaan tagnaa inta soo hartay inaanu layno magaaladan aanu qabsano qof baa la soo diray sida waswaas iyo tashwiis iyo rucbi dadka uu ku rido oo sheeg baa leeyahay Muhammad meel fog ma joogni inagu meel yar baanu aadnay waanu idinku soo noqonaynaa inta idinka hartay baanu idinka dhamaynaynaa magaaladana waanu qabsanaynaa qof baa la soo diray warka soo sheego qofka marka ay yimid warka uu sheegay warka cabsi rucbi argagax midna kuma ridin bal iimaan buu kordhiyay marka bay hoggaansameen subhanahu alayhi salatu wasalaam amr buu bixiyay wuxuu shalay dagaalka inta ila gashay baan doonaya cid kale may inta shalay ila gashay waxa halka inay noogu yimaadaan ku sugimayna oo u siisaqayna dhankooda marka xitaa ka dhaawaca ahaa ka dhibana gidtigoodii waa la tagay goobtii iyagu ay joogeen hadii la tagay oo way kala firdheenba xitaa alaabtoodii waxoodii halka ay wateen beelka kaga tageen iyaga la soo wareegay dadka iyadoo dhibaato kale iyo qof kale ka dhiman bay meeshiina ay tageen kuwana ay carareen marka dambi dhaaf iyo ghaniimo iyo khayr bay la kulmeen marka kalsooni way inta la cabsi galiyay bay waxay yiraahdeen hasbunallahu wa ni'mal wakiil mu'minku inuu sida u dhaqmo waxa loo sameeyay inaga lana baraya markay dhibaato ku soo wajahdo dib lagu sheego wax kaan xiya lagu sheego hasbiyallahu wa ni'mal wakiil allah iga filan waya dhibka iimaan waya marka arinka rabbi wuxuu alladina kuwa قال لهم الناس إيجا بدتك ويري تطبع أبو سفيان قفكو صادري ويا وحكو يري إن الناس ضدك وأبي سفيان عيد مدي سوياني قد جمعوا لكم دلتين بيأكل من وإذن قصوا صعدان فاخشوا مدر بكبقى تطبعان ويانو اسكمدعين كرتيني ودتك شلي إذن لا يي كبقوا عررا فزادهم وركا أوفيرسو نياد جابي أرقاق منكم مردين وحو أكرديي إيمانا وركا إيمان بكسي قادين وقالوا وحينا يرادين حسبنا الله كافيا نغا الله ويا الله نغفرا ونعم وحا نعم بتي وحا وناكسنا هذي الوكيل قف وكيل لغدكتنا إلا ترسارتنا الله نعم بدن ويا الله نترسارنا ويا سيدا هذي وهذا محيكا يلندقى يسمركا ربي وحوري فانقلبوا وحي لنا لسوق الدومين فانقلبوا وحي لصون نقدين بنعمة برواقو من الله إلى حق اللوغو برواقي وفضل يديرات تاقي يدن بداف يغنيمون بيركا كهلين لم يمسسهم مدار متاون سوء وحماه لبي يضاوع يدمشو وحي لكل من بانجرين هل كادي تغين ددكين الرعب بو ألا كردي وتصي أردي
واتبعوا وحي راعين بربي رضوان الله إلى رضيه سيبك راعين مرك أمرك ربي أمرك رسولك يقاتين والله ربي سبحانه وتعالى ذو فضل الله صاحب ويان عظيم وين بدن ولا إذا توكلك يقينك يا الله سيوذا وقال تعالى ربي وحو يري وتوكل عسكو اتلا صارو على الحي الله النول الذي الله لا يموت عن دمنين نبي محمد بالغو يري الله عسكو اتلا صارو موت وديو تذكنا والناس نبي محمد بيكون راسين أريكا إني مركا الله عسكدانو ربني من الله عسكدو وقال تعالى ربي وحيري وعلى الله ألا كركيسي فليتوكلها عسكدين المؤمنون مؤمنين إيمان هدو جرو مؤمنين الله ترى سارتين ويا ترضوا ذي الله وديبتين وقال تعالى ربي وحيري فإذا عزمت هدادقو أنستو فتوكل عسكو صوبنو على الله ألا كركي أيضا سورة آل عمران بكجرتا أيضا وحكا وريسين وشاورهم في الأمر أصحاب هذيك لا تشو دقالك أحدا يديك هذا أيام ويان بعدما جبك يمت خلاف سجل الله خلاف جبك أنا والسببي بوحى ليري لا تشو هكتين تذكاقي وياني لا تشو مركا تشتانا قوان مركا لقارنا قوان كإن لفليا نقطو فتوكل على الله الله عسك ويا مركا أمركا قارين كاقال لا وديو فإذا عزمت هداد قوان ستو وحلقت تشتين لما المريون لفليو فتوكل على الله الله عسكو يتراد هذه أمور تادي وديو والآيات مركا يدها في الأمر ليس أمره بالتوكل إلى إن لتلاسارتو كثيرة آذبه فربذنيهن معلومة وانا ليقانا قرآن كإن بدن باكو وذجرتا وقال تعالى آيذا هوري وحكا لين توكلك آيذا دنبي وحكا اللهيان فضلك توكلك روح أدو إلى تلاسارتو فضلك وكيلاي وقال تعالى ربي وحويري ومن روح يتوكل عسكذا على الله ألا كركي تلذيس ألا وديبتا فهو ربي سبحانه وتعالى يساقاه حسبه كافي سويه الله كفلا وجه ربني ما مركض الله أترى سارته أمور تلذودي وتو الله يساقك كافلا وحكستا كافيه وجه الله كفلا وقال تعالى ربي وحويري مؤمنين بربي تلماماي إلى دد بدن بإيمان كسكشاقن كر مؤمن بانا هاي ودد بدن باوران كر إرقا مؤمن بانا هاي لكن مؤمنين تو صفوين وربي كوشا غيبا جرتو مركا الروح اللقاء إلى صفاتك بمؤمن نقول كرا هذين صفاتك أجرين ولو يستقوا بها شاكته إيمان بانجرين هدو جرنا إيمان ناقص ويان ودمان قال تعالى ربي مركو كالله مؤمنين تو إيمان كودي دبياي مؤمن ويان لورنكر وكوما إنما إن كلماها المؤمنون مؤمنين تو الذين واكوا إذا ذكر الله إلى مركا الله حصو وجلت قلوبهم قلوب تودي عبسته ارتكاوا واصفه وانا شرد روح هو مؤمن آيات ولبا دي لغو أقريو حديث ولبا لغو دل أقريو سامينين إيمان بانجرين بل الإنسان على نفسه بصير ميزان كذا استساره آياتها مركا لغو أقريو سامين مكوكو لي ينجر كاقي نفتادي قلبي نروش هذه بس شاكا عادي بيكون لميتها شاكا عادي مركز دقيشته إنا يهسوا بيكو ساميان لأركو لك أيضو أيامكو سامين هل كإيمان لنتي باجرو إيمان مجرو مؤمنين تلمام تذي وحاويان تقشعر قلوبهم ويجر كذيبا وحاويان عبسي قرير بقرايدها ربي سبحانه وتعالى مركز الله شيكم ربي وحول إنما المؤمنون مؤمنين تواكوما الذين واكوا إذا ذكر الله إلى مركز الحصول لشيغو وجلت أي عبسته قلوبهم قلوب تودي وإذا تليت مركز الأقريو عليهم يغدوشو دي آيات الله يديس مركز الغد الأقريو زادتهم آياته وحي أكرديان إيمانا إيمان بأكردين مر الله مركز آيات الغد الأقريو آيات محي سمين إيمان بأكردين booskaad salay joogto iyo kamaanta aad joogto inuusan sinaanin mar alla markaad aayad aad maqasho war nabi aad maqasho iimaanku inuu kordho sababto iimaanku wuu ziyaadaa wuuna naaqusaa
yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya daacada iimaanka ku kordha halkaanu fadhina meelaha iimaanka ku kordha weyaan qaala allahu waqaala rasuulu intaanu maqlaynaba iimaanka mu'minka taraqi buu samaynaya meelaha ayaa jirto iimaanka baaba ziira ku noqdo ku baabaa meelaha waxa weeye macasiyada iyo xumaha lagu hayo allaba lagu xusin iimaanka ku dhinta meelahana marka waxa weye kuwa marka aayadaha rabbi lagu aqriyo aayaduhu iimaankii u kordhiyaan wacalaa rabbihim rabbigoodina korkiisi bay yatawakkaluuna cuskanayaan ilaah bay tala saartaan taladoodii iyo umuurtoodii allay u dhiibtaan walaayaatu marka aayadaha fii fadli tawakuli fadliga uu leeyahay tawakulka alla la tala saarto kathiiratun kuwa badan weeyaan macruufatun waana macruufo waa la yaqaanaa wa ama alaxaadiidu markaan u gudubno aayadaha intaa buu imaamu nawowi baabka u soo qaatay axaadiistana dhegaysta falawalu xadiiska ugu horeeya ee loogu hadlayo yaqiin iyo tawakul can ibni cabaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi ibnu cabaas baa laga wariyey qaala cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi curidad waa la bandhigay calaya aniga dushaydii alumamu ummadaha iga horeeyeen baa la ii soo bandhigay buu yidhi ummadihii iga horeeyey baa la ii bandhigay ama waxay noqon kartaa filmanaan baa loogu bandhigay isagoo hurdayo waru'yatu alambiyaai waxyin weeyaan nebi wuxuu ku riyoodana waa waxyi ama leylata alisraa'i waalmicraaj habeenkii la dheelmiyey baa suuragala in loo bandhigay ummadahoo dhan la wada tusiyey fara'aytu waxaan arkay buu nebiga yidhi sala allahu calayhi wasalam marka ummadaha la ii bandhigayay baa waxaan arkay buu yidhi annabiya nebi baan arkay wa macahu nebiga ay la jiraan alruhayd ruhayd taskhiiru rahdin wayaane waanu arki doonaa rahdi la taskhiiriyey oo la yareeyey ruhayd guuto yar weya dad yarun xitaa tooneeyo gaaraynin nebi baan arkayoo wa macahu ay la socdaan alruhaydu jamaaco yarun xitaa ummadiisoo dhanba tawarux ma gaarsiisana waa nebi rasuula la diray wanabiya nebi baan arkayoo wa macahu ay la socdaan alrajulu nin warajulaani laba nin nebi sida loo diray habeen iyo maalin dadkii u dhex qaylinayay ummadiisoo dhan waxaa ka raacayba qof iyo laba qof wanabiya nebi baan arkayoo walaysa macahu axadun qofna waa keligii sida loo diray ilaa ka dhintay cid raacday bay jirin habeen iyo maalin buu dacwadana u taagna taduu yeeshay bay jirin dad raacay bay jirin baan arkay buu yidhi iyadoo sidaa ay tahayba id rufica waa la koryeelay buu yidhi lii aniga sawaadun cadiimun madow weyn dad badan weyaan ashkhaasun kathiira weyaan iyadoo sidaa ay tahay nebi laba ay la socdaan labi dad yaroon toban gaaraynin iyo rasuulaan dadba wada markaan arkayba haddana waxaa la i tusiyey sawaadun cadiimun ay ashkhaasun kathiira dad badan baan kor ka arkay buu yidhi fadanantu waxaan maleeyey buu yidhi annahum iyaga kuwa inay yihiin ummatii ummadeydi dad badan baan arkay markaaba waxaan maleeyey buu yidhi inay ummadeydi yihiin faqiila lii marka ayaa laygu yidhiyo ummadaadi ma aha haadaa muusa wa qowmuhu waa nebi muuse iyo qoomkiisa weya muuse iyo qoomkiisa weya kuwaad aragtay walaakiin ha yeeshee undur fiiri baa laygu yidhi ila alufuqi jihada kale baleeg jiha kale baa la ii aadiyayo dhanka eeg baa la yidhi fa nadartu waan eegay buu yidhi dhanka la ii rogay baan eegay oon fiiriyey fa idaa sawaadun cadiimun dad badan baan arkay buu yidhi sawaad cadiim baan arkay faqiila lii marka ayaa laygu yidhi oo haddana undur ila alufuqi alaakhari jihada kale haddana eeg baa la yidhi jihada ka soo tago dhanka kale haddana u milicso haddaan fiiriyey fa idaa sawaadun cadiimun dad badan baan arkay buu yidhi faqiila lii marka ayaa laygu yidhiyo haadihi ummatuka waata ummadaadii ta dambe weyaan jihooyinkao dhan wada buuxiyey ee tiro badnaanta dadkao dhan ka batay kuwa weyaan ummadaadii wa macahum waxaana la socota 70,000 ummadaadii weyaan waxaa la socota 70,000 yadkhuluuna aljannata jannayna galayaan bikayri xisaabin walaa cadaab iyagoon xisaab iyo cadaab midna la marsiin bay janno galayaan
ila dad badan baa janno geli doon ruux waliba mu'mina iimaanka hadduu ku dhinto jannuu galaya laakiin inta badan xisaab baa la maraya dadkan waxa iyagu xisaab la-aan bay janno galay dad baa jiru jannay galaya laakiin cadaab bay marayaan intay galeen baa laga goynaya marka hore iyaduna way jirtaa dad janno galay oo cadaab la soo marsiiyey intay galeen baa laga jaray dadna waa la xisaabiyey iyaguna ka gadaal bay janno galeen dad baa jirto ayaan markaa xisaaba la marin iyagoona cadaab iyo xisaab midna marin si toosuu janno u galay oo 70,000 buu nabiga ku sheegay sallallahu calayhi wasallam la socda marka 70,000 jannadaa layskama siisininoo sifay ku muteen sifadaanu arki doonaa sifadaa baa laga helayoo sifadaa marka laga helay bay jannada ay muteen oo inay galaan cadaab la-aan iyo xisaab la-aan uma ka gadal nebiga warkaa markuu yidhi buuna hadla iska istaagay halkuu fadhiyey buu ka tagay wuu joogsaday wuu tagay fadakhala wuxuu galay manzilahu gurigiisii masaajidkii caqaladiisii way saarnaayeen gurigiisii guri ka mida buu iska galay fadakhala manzilahu buu galay fakhaada annaasu dadkii baa marka hadal baa dadka way hadlaayeen markuu ka tagay hadal baa markaa la galay hadal in la hadlo fakhaada annaasu dadku waxay galeen inay ka hadlaan fii ulaa'ika aladiina yadkhuluuna aljannata bikayri xisaabin walaa cadaab talow yay noqon karaan bay leeyihin dadka nebiga sheegay 70,000 oo janno gali doono iyagoon cadaab iyo xisaab midna la marsiin kuwiiba markaa la dhexgalayo in lagu dhex dabaasho dadkay yihiin qaarba waxay yidhaahdeen falacallahum iyagii dhexdoodii way iyagaa iska qiyaasaya marka waxay yidhaahdeen falacallahum waxaa la arkaa inay kuwa yihiin aladiina saxibuu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inagii waya marka iyagaa istilmaamay waa raggii nebi maxamed la saaxiibayo asxaabtiisa inay yihiin baa la arkaa qaar waxay waqaala bacduhum qaarkoodii waxay yidhaahdeen falacallahum waxaa la arkaa inay yihiin aladiina kuwa wuliduu fi lislaami islaamnimaba lagu dhalay falam yushrikuu billaahi shan aan rabbiba wax la wadaajin ila dad baa gaalnimay soo maray ka gadaa baa la islaamiyey kuwa ma aha bay yidhahdeen waa kuwa islaamnimo ku dhashay aan weligoodii rabbi wax la wadaajin sidaana ku dhintay kuwa weyan qaar baa yidhi warka iyagaa hadlay qaar baa sidaa yidhi wadakaruu ashyaaa wax badan bay sheegeen wax badan qolaba wax bay tiri qolaba meel bay madaxa la aad ee u gelisay wax bay ku tilmaameen iyagoo sidaa u buuqsan u hadlay mar kale fakharaja calayhim rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayaa ku soo baxay faqaala wuxuu rasuulka alle yidhi ilan hadalkoodiiyo buu maqlaayey ma aladii takhuuduuna fiih waxaad ku dhex dabaalanayseen ood ku hadlayseen maxay ahaayeen maxaad ku hadlayseen buu yidhi waa maxay fa akhbaruuhu markaa bay u sheegeen qolana sidaa bay tiri kuwo kalena sidaa bay yidhaahdeen kuwo kalena waxaabay ku sheegeen wax ayaanu nidhi faqaala rasuulka alle wuxuu waxaad sheegteen oo dhan wax kama jiraan dhagaysta dadka 70,000 ee janno galay bilaa cadaabin walaa xisaabin hum iyaga aladiina waa ku ileen baabu tawakul baan gudaha ugu sii jirnaa tawakulka u fiirso laa yarquuna walaa yastarquun kuwa waa kuwama waa kuwa iyagu aan wax tufaynin iyagana in loo tufo ayan raadsanaynin waa dadka tawakulka ka batay xitaa isma daaweeyaan wax ma daaweeyaan iyagu isma daaweeyaan inkastoo iyadu ay sunno tahay ruuxa inuu isdaweeyo laakiin tawakulkoodii baa heer dhaaf ahoo iyagu inay wax tutufaan iyo in iyagu tuf ay doontaan iyo may waa dad allah ku xiranoo tawakulkoodii baa xoog badan in ruuxa wax tufo ama in la tufana iyaduna dhibaato ma jirta taana ogaada ila rasuulkeennii baa wax tufay oo isagiina la tufay tufiddu hadday sharci tahay tufid la ogolayn baad wax lagugu aqrinay baadan garanaynin laakiin markuu qur-aan yahay ama adkaarta waaridka ay yihiin ruuxa wuu isu tufi karaa dadna wuu ku tufi karaa laakiin dad waxa weye ammaantoodii badatayo iyo tawakulkoodii heerka uu gaaray waandadan iyagu wax tufin waandadan iyagu in xitaa loo tufo waxa weye wax loo aqriyo ayaan doonaynin weyaan walaa yatatayaruuna ma baasaystaan baasaysi wax la yidhahda iyagu ma yaqaanaan mu'minku baas ma yaqaano inuu wax baasaysto baasaysku waa sidee dhaqan jiri jiray wayaana in wax la baasaysto
waxaaba makruufi ugu noqday iyo guriga ayaa noqotay bilcaanta ayaa waxaa noqotay waxaa dhan diintu wax kama jiraan. mu'minku waxaa ma yaqaan. waxa way iimaankaagii hadduu qabi yahay, haddaan iimaan jirin waa masalo kale. dadba waxay ku baasaysan jireen hadday raba inay safraan inay faaldhowaan. wax buu rabaa inuu qabto waa la faaldhowaya. see loo faaldhowi jiray ama maxay samayn jireen? banaamaadkaa la aaday, magaalada laga baxaya, geedaha shimbiraha saaraanba ayaa loo tagaya. inta dhagax la qaata ayaa lagu ridaya shimbirta. waxaa la leeyahay dhanka midig hadday u duulaan abshir weyan, hoosh waanu qabsanayna. hadduu guur yahay waa la galaya, hadday shaqo tahay waa la bilaaba, hadduu safar yahay waa la safra. dhanka bidixay hadday u duulaan danta la qabay oo dhan baa la baajinaya. bes waxaa laleeyahay waxaan wax soconaya ma diin badaayo caqli ilaah ku siiyey. shimbiro xayawaana dhagax aad ku riday, dhankii u sahlanaaday u buubay, dantaadii ha kaa joojiyeen. balka war dantaadoo dhan inaad soo baabi'iso liajli shimbiraaya dhankaa u buubay u duulay, iimaan la-aan weye. iimaan inuusan jirin baa halkaa laga garan. ruuxa mu'minka mutawakil weye. waxaago dhan xayiray xanibay hadday shimbiro noqdaan ka war. xalay waxaa shimbirka igu soo degay baa waxaan sababiyey. almusabibu huwa allahu jala wacala, aldaaru naaficu huwa allahu. ku xirnaasho dhaba umbaa la doonaya. marka kuwa dad wax baasaysta maaha, shaqadoodii maaha, baasaysi ma yaqaanaan. walaa yatatayaruunbu wacalaa rabbihim rabbigoodiibay yatawakaluuna cuskanaya. dhabnimay alla u cuskadaan. kuwa weya marka kuwa janno galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan. faqaama cukaashatu ibnu muxsinin, cukaasha saxaabiga la oran jiray cukaasha ayaa istaagay. wuxuu cukaasho yidhi udcu allaha an yajcalanii minhum. ilaah ii baryo rasuul allow, ilaahna inuu iga mid dhigo. 70 kun ilaah inuu igu daro, bal ilaah igu bari. faqaala rasuulka alle wuxuu cukaasho ku yidhi anta minhum, waad ka mid tahay. 70 ayaad ka mid tahay. bishaare weeyaan. cukaasho marka 70 aan xisaab iyo cadab midna marin ee si rasmiga loo ogyahay weeyaan, janno geli doono. uma qaama rajulu, nin baa istaagayo aakharu kale, nin kale baa haddana soo istaagayo faqaala wuxuu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum. ilaah ii baryo rasuul allow kuwa inuu igu daro. faqaala wuxuu rasuulka alle ku yidhi sabaqaka biha cukaashatu, cukaasha kaagala hormaray arinka. wuxuu diiday xiraya dadka badan safka ma dhamaanay. kii waliba wuxuu le igu dar, anna igu dar. xitaa munaafiqiin baa halkaa joogtay. warkaba sida loo gowraco ee qof kaleba u damcin, halka ayaa markaa lagu joojiyeyo sabaqaka biha cukaashatu, muttafaqun calayhi. ereyadaanu soo maray oo meesha adeeg ahaa buu aayar kuu jilcinaya imaamu nawowi. alruhayd waxaanu soo maray rasuulka alle wuxuu arkay nebi wamacahu ruhaydun. ruhaydkuu kuu fasiraya. alruhaydu bidami raa'i, ra'da la godo, ru la yidhaahdo. tasgiiru rahdin weya. rahdi markaad rabto inaad yarayso, ruhayd baad leedahay. guruub yar, guruubkoo yar. wahum iyaguna ruhaydku duuna 10 anfusin weya. 10 ruux waxaa ka yar baa ruhayd la yidhahdaa. dadan xitaa 10 ruuxba dhammayn weeyaan. walufuqu wuxuu ihi ufuq dhan baan eegay. ufuqu waa maxay? annaaxiyatu waljaanibu weyaan, waa dhinac iyo dhan weyaan. dhanka midig eeg baa layidhi, dhankaa fiiri, watananu soo maray. wa cukaashatu, cukaasha bidami lcayni, caynka la godo, wa tashdiidi ilkaafi, kaafka la shido, cukaasho la yidhaahdo. wa bitakfiifihana waa la heli karaan kaafkoo la shidino, cukaasha iyo cukaasha waa magac weeyaane, labadaba loo aqrin karo. laakiin watashdiidu afsaxu, in la shidaa fasaaxo badan. in la shido ayaa fasaaxo badan oo la yidhahdo cukaasha, iyadoona la heli karo kaafkoon la shidino cukaasho la yidhahdo. laakiin marka la shida iyo markaan la shidinba mar weliba caynku uu godan yahay, cukaasha ama cukaasha. weli baabkan gudaha ugu sii jirnaa, baabu lyaqiini waatawakul. athaani can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ayضa
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري حديث كاللبات اللغة لي باب اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بالغوريين أيضا سيده هوري وكله حديث كهوري أنو كسو قدبني ابن عباس بالغوري كان سيده وكله إسقى لغوري ابن عباس روحو يرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كالله كان وحوها يقول مدير هذا رسول كالله وحو رنجري بريوينكيسي يدعوينكو كو ألا بريجري وحاكمدها اللهم يا الله لك أديك أيان أسلمت كوه قان سمي الله وأذان كوه قان سمي وإسكوك جيبي وبك أديك سببت أديبان آمنت ورميي وعليك الدش أديبان هي توكلت عسك الله وأذان كتلا سارتي واكا بريوينك النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وأذان كتلا سارتي وإليك أنبت حقا قيبان أصول نقضي أتوبت كيني وبك درت هذه صوبت هذه خاصمت أنا عدوك ولا عليت ميويا دقال يدود وحن درت هذه أقلي الله إن عدوك يقال أن لا تدودون لا تقالموا لا عليتموا وبك خاصمت درت هذه أدودي ويا أعداء الدين أنكو لا تدودي اللهم يا الله إني أنيا أعوذ وأن مغنغرايا بعزتك شرفت هذه مغنغرايا لا إله إلا قرل وعودان جرين إلا أنت أذيك كليغا قيمهاني إلا وحن كاغم مغنغلي أن تضلني إن أضل مصو إلا غدان كاغم مغنغلي إن أضل مصو أيان كاغم مغنغلي أنت أذيك الحي الله النول باتهاي الذي الله لا يموت عن دمنين الله النور دمنين باتهاي والجن والإنس يموتون جني قوي إنس قوي دمنايا أذان دمنين الله وذانكم مغنغليو وعن كام مغنغلين أدل مصو متفق عليه وهذا لفظ مسلم لفظ بخاري مسلم حديث كسوة وافقي لكن سيدا در أقرن اللفظ سيدا كيمد إمام مسلم بولغار يهي واختصره البخاري بخاري انت وكسي قابصدي marka riwaayada Bukhari eegto inta dhamma gaarsiisano wax yar buu ka dhimay laakiin lafdiga waa ka muslim ee sida u dhameystiran wali baabul yaqeen wa tawakkul ban gudaha ku sii jirnaa الثالث حديث كسدحات عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري حديث كسدحات عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس بالغوري أيضا سيده هوري وكله كي كواد يكلبات انتو ابن عباس بالغوري كان سيده وكله قال ابن عباس وحو يري ارغا لا يرادو حسبنا الله كافيا نغا الله ويا الله نغفلا ونعم الوكيل عدل ترى صارتنا وكيل لغا دغتنا waxa u wanaagsan ee u wanaag badan Allah wayaan ee sida la yiraahdo ereyga qaalaha marka hore waxa ku hadlay warka yiri Ibrahim alayhi salatu wasalaam nabi Ibrahim ba ereyga yiri goorma حين ألقي في النار dabka marka lagu riday keligii buu muslimka ahaa intay soo qabtay waa qiso dheer fi suurati al-anbiya ba laga hadlayo asnaamtoodii waa markuu wada badujiyay oo jijibiyay leeyri asnaamta in loo aara weeyaan saani weelna waxa way dab weyn badan waa in la huriyaa ibraahimna lagu rido la gubo waxay yiraahdeen xarriquhu wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin wansuru alihatakum in kuntum faa'iliin war badan daayo asnaamta ruuxa sida u galay waad garateen inuu ibraahim yahay bal qabtu guwa tab kurida una gargaaro asnaamtiina la jibiyay
argudasho weyaan loogu arguday geeda weyaan khaliil الraxmaan baa loogu argudaya qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim fii suurati alambiyaa marka ereyga marka dabka lagu riday ibraahim wuxuu yidhi xasbiya allahu wuu yidhi allah igu filan weyaan ibraahim wuxuu yidhi xiina ulqiya fi nnaari xasbiya allahu buu yidhi wa qaalahaa muxamadu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa yidhi oo ereyga xiina qaaluu markay u yidhaahdeen abu sufyaan iyo ciidankiisii qof la soo diray la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum war dadka dartiin bay isu urureenoo idinka idin wada kulmeenoo way idinku soo socdaanoo ka baqa dadaad iska dhicin kartaa maha waa kuwa shalay idin laayay inay idin dhammaystiraan bay doonayaan carara fazaadahum iimaana warka dhigba looma dhigino iimaan bay ka sii qaadeen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil allah noogu filan weeye warkaas sheegteen cid la cuskada la tala saartana allah u wanaagsan allahnu cuskanay weyaan intaad doontaan imaada weyaan erey marka yaqiin iyo tawakul dhabnimaa laga hadlaya ereygan xasbiya allahu wa nicma alwakiil waa adkaarta la jideeyey in la aqriyo sabaaxan wamasaaa gelinka hore iyo gelinka dambe adkaar asabaax way ku jirtaa gelinka hore maalinkaas aad aqriso xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi alcadiim aw xasbiya allahu wa nicma alwakiil ruuxa aqrista maalinta sharteeda iyo dhibaatooyinkeedao dhan baa laga kaafin buu subanuu yidhi haddaad habeenka aqrisana waa sida adkaaro yar wayaane laakiin dantanada ay in badan ay ku jirto adkaar asabaaxi walmasaa ayaa ka midan marka xasbiya allahu in markaa la yidhaahdo bukhaari baa xadiiskaa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale haddana bukhaari u sugnaaday can ibni cabaasin radia allaahu canhu ibnu cabaas buuna ka wariyey qaala wuxuu yidhi kaana aakhira qowli ibraahiima sala allahu calayhi wasalama xiina ulqiya fi nnaari xasbiya allahu wa nicma alwakiil rasuulka alle wuxuu yidhi kaana aakhira qowli ibraahim calayhi asalaam hadalkiisii ugu dambeeyey wuxuu ahaa xiina ulqiya fi naari goorta dabka lagu riday hadalka ugu dambeeyo ibraahim uu ku hadlay wuxuu yidhi xasbiya allahu wa nicma alwakiil xasbiya allaahu kaafigaygi igu filan ilaah wayaane wa nicma alwakiilu inta la tala saartana allah u wanaagsan malaa'ig baa u timid baa la sheegaa dad badan baa u yimid oo malaa'igta ka mida aynay markaa u gargaaraan uu u leeyahay gargaarku hadduu adiga kaa socdo may amaa ilayka falaa buu yidhi wa amaa hadduu ilaa agtiga gargaarka igaga socdo fanacan buu yidhi waa ta doonaya yaqiin iyo tawakul weyaan ilaa keligiia lagu xirnaado xadiiska u dambeeya oo casharkaanu ku joojin doono waa ka afraade araabicu can abi hurayrata radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal yadkhulu اljannata aqwaamu afidatuhum mithlu afidati الطayri rawaahu muslim qiila macnaahu mutawakiluun waqiila macnaahu quluubuhum raqiiqa weli waxaan gudaha ugu sii jirnaa baabu اlyaqiini wاtawakul xadiiskiisii afaraad can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hurayra laga wariyey abu hurayre isaguna can inabiyi sala allahu calayhi wasalam ayuu ka wariyey qaala rasuulka alle wuxuu yidhi yadkhulu ljannata janno waxaa geli doona janno waxaa galay aqwaamun dad baa janno geli doona afidatuhum quluubtoodii ay la mid tahay midlu afidati tayri shimbir qalbigeedii oo kale ruux shimbir qalbigii oo kale wata unbaa janno galaya dadkan qalbigoodii shimbir qalbigii oo kale janno geli maayaan wuxuu subanuu yidhi janno waxaa geli doono dad afidatuhum quluubtoodii ay tahay midlu afidati tayri shimbiraha qalbigoodii oo kale ruuxa wata xadiiska muslim baa wariyey waa saxiix marka macnaha waa maxay shimbir qalbigii in la yeesho shimbir qalbigoodii waa sidee shimbiraha quluubtoodii waa qaabkee qiila waxaa la yidhi mutawakiluun waa dad allah cuskada xadiis baanu gaari doonaa uu subanuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarsuqu atayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaana haddaad ilaah u tala saaran leedeenoo sida shimbiruhu ay alla u tala saartaan
shimbiraha siday ilaah u tala saartaan haddaad ilaah u tala saaran laheedeen la rasaqakum rabbi wuxuu idinku arsaaqi lahaa sida shimbiruhu u arsaaqo risqigiina mid sahlan oo fudud buu noqon lahaa sida shimbirahaba loo arsaaqo qaabkee loo arsaaqa taqduu khimaasan musuubanuu yidhi boggeeda isu dhegan bay buulkeedii ka duushaa dukaan uma furna shaqo uma socota beer uma waxa iyadu leedahay daray og tahay ay tagayso waxaad ka soo qaadanaysaan jirin dhulka waxa weeye ciidda cad bay ku degtaa halkaa uu rabbina ku arsaaqa kalsooni wayay og tahay halka inay ka dhargi doonto waxay soo noqotay iyadoo boggeedii u wada buuxo caruurteedii weli cunta ay u soo wato shaqay foofatay ama dukaan ay tagday oo furatay baan jirin taqduu khimaasan wataruuxu kalsooni waya ilaahay ku kalsoontay inaan la qadin kalsoonida dhabnimaadaad alla u hayn laheedeen sida shimbiraha loo arsaaqo unbaa laydinku arsaaqi lahaa buu suuban uu leeyahay sala allahu caleyh wasalam taa waa mid tan kale waxaa la yidhi waqiila waxaa yidhi quluubuhum raqiiqa shimbiruhu way qalbi jilicsan yihiin ruux qalbi jilicsan baa janno gala naarna ka badbaada suubanuu ahlu naar markuu ka hadlay kullu jabbaarin buu yidhi ahlu naar waa kuwama qof waliboo qallafsan naxariis laabo ah qalbi engegan naxariista laga qaaday ahlu naar kuwa weeyaan ahlu jannana qof waliboo raqiiq ahoo jilicsan oo qalbi dibicsan kaa weeyaan oo miskiina ahlu jannana markuu tilmaamayay marka wuxuu suubanuu yidhi janno waxaa galaya dad quluubtoodii aada moodo sida shimbiraha oo kale ama xagga tawakulka ama xagga jilicsanaanta intay ahaataba الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة وحا جنة أقوام ضد أفئدتهم مثل أفئدة الطير والله أعلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين